waxaan ka hadlaynaa horta maanta waxaan ka hadlaynaa maanta guurkaan ka hadlaynaa guurka iyo isfahamka labada qof ninka iyo naagta ka dhaxeeyo. horta guurka waxay u fiican tahay waxaa ka soo qaadaan marka laba qofood ay isukaansanayaan, qof walbo qofka kaleeta ayuu wuxuu iskaga dhigaa balaayo. ninkana wuxuu iskaga dhigaa naagta inuu nimanka dhan u sarreeyo, naagtana waxay iska dhigtaa in naagahoo dhan wax dhaanto. laakiin runta waxay imaataa markii guri laysla soo galo, qol laysla soo galo, nolosha runta markaasay bilaabataa. markaas waxaa loo baahan yahay ninka inuu ka soo baxo meesha, waa inuu noqdaa sareeyo, waa inuu noqdaa. naagtana waa inay ninkeeda ka dambaysaa. hadday labadaas isla fahmi waayaan, wax soconaya ma leh. guurkaas wuxuu noqonayaa dee shirkad aan maamulkeeda la aqoonsanayn. de marka shaqaalaha sitii dee waxay soo saari karaan ma leh. taas waxay ku tusaysaa in ay tahay guurka oo yahay kala dambays iyo isfaham. isfahamkaas iyo kala dambaystaas haddana ninku waxaa loo sii caddeeyey in uu yahay ninkii sareeyaha ahaa ee maamulka haystay. laakiin ummadda soomaalida iyo dee meelaha kaleeto siiba soomaalida ay jaahiliinta waxay u fahamsan yihiin in yacni oo ninkii naagtiisa lacag fiican siiya, ninkii naagtiisa biil fiican siiya inuu yahay nin sareeyo fiican oo de maamuli karo. taa waa been. sareeya waxaa waaye adeec, inaa adeecdo ninkaaga inuu yahay sareeye. markaas ayuu reerkaas dhismi karaa, ayuu reerkaas wuxuu noqon karaa reer dee xidid yeeshay oo dee ka soo baxay sida diinteena ayna farayso. marka haddii aynan labada qofood isla fahmaynin, waxaa la dhahaa meesha adeec ma taalo. adeec haddee meesha yaalina dee reer dhaqmaaya ma leh. taasna waxay kuu caddaynaysaa in ay nolosha u baahan tahay الرجال